وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم wardadoo rag iyo wiil waxaan idinka abuurnay buu dhahay ilaahay dakar iyo unfa waxaan idinka yeelnay shicbiyaaliyo qabaa'ilo waxaan ugu talagalnay tacaaruf uguma talagalin in lagu kormaro laakiin saa darteed ogaada midka idinkugu fiican idinkugu karaamo badan alla agtiisa waa midka idinkugu cabsi badan qof walba qof kale intuu ka cabsi badeeb waa looga dhow yahay qof kasta qofka kale intuu uga taqwo badeeb waa looga dhow yahay subxaana wa tacaala aan wax badan alla ka cabsiga laasimna walaalayaal alla ka cabsigii maanta waa yaraaday xusuusin kartaanba jirinba qof aayad loo akhri karaa nagu yaraaday qof xuduudda alla ilaaliyaa nagu yaraatay in yar oo rabbi u naxariistay maahee walaalayaalow alla ka cabsiga aan badina si ilaahay noogu naxariisto aan alla ka cabsiga laasimna walaalayaal aan alla ka cabsiga ka dhigana sahaydii waayo wax kasta oo lagu badbaado sahay laga dhigta alla ka cabsigaa ugu sarreeya alla ka cabsigaa ugu weyn alla ka cabsigaa laagtiisa wax anfaca alla ka cabsigaa laagtiisa wax tara alla ka cabsi baa ilaahay agtiisaaad ku liibaanaysaa sidaa darteed waa inaan aad iyo aad alla ka cabsiga u badinaa rasuulkii allow dadka maxaa ugu badan oo ay cadaabka ku galaan baa la su'aalay wuxuu ugu jawaabay waa afkiiyo xibinka taranka ah waa labada ugu xun ama labada ugu daran ee dadka cadaabka geliya maxaa dadka cadaabka ku aruuriya walaalayaal waa afka shirkigaa lagala hadlaa rabbi baa looga shariig yeelaa kufrigaa looga dhawaaqaa ummaddaa lagu xantaa dhibaato badan baa lagu sameeyaa afka ugu badan qof allaala qofkaan iska ilaalinin sidaa darteed buu rasuulku yidhi war yaa ii ballan qaadaaya war yaa ii damaanaya yaa caawa ballan qaadi kara inuu ilaalinayo labadiisa lafgardaan waxa u dhaxeeyo carabka ah iyo labadiisa lugood waxa u dhaxeeyo farjigiisa ah oon janno u ballan qaadaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam war yaa janno u ballan qaadaa war yaa iga damaani kara labada war yaa iga xafidi kara labada war yaa ilaalin kara labada war yaa labadaa ka adkaan kara war yaa afkiisa khayrka sheegi kara war yaa afkiisa alla ka cabsi ka soo bixi karaa war yaa afkiisa aayaadka alla ka soo bixi karaa war yaa afkiisa dikriga alla ka soo bixi karaa war yaa xibinkiisa taranka ilaalin kara war tii gacanta u soo taagta yaa ka celin kara gacantiisa war yaan gabar ajnabiya gacan ku salaamayn war yaanan dhunkanayn war yaan gacanta ka qabsanayn oo ilaalinaya war yaa cafiif noqonaya yaa janno loo ballan qaadaa labadaa qofkii ilaaliya janna ayaan u ballan qaaday buu dhahay sala allahu calayh wasalam walaalayaal aan dadaalno adduunkan matac quruur ah waaye xaaraanteedii xumaanteeda in badan aan ka fogaano wixii shaydaan nagu qabtoo nagu simbirixiyo nafteenna intay jeclaysato aan ku dhacnoon is aragnana aan ka soo laabano waaladiina ataqow idaa massahum taa'ifun min ashayطaani tadakkaruu dadka muttaqiinta ah alla ka cabsadayaasha ilaahay dadka aad uga cabsada waa kuwa markuu shaydaan simbirixiyo waa kuwa markuu shaydaan legdo waa kuwa markuu shaydaan xumaan ku dhex rido isxasuusto oo rabbi u soo laabtay subxaana wa tacaala waxaad moodaa inayba arkayaan way ka soo cararayaan way ka soo ordayaan way ka soo fakanayaan rabbi bay ka magangelayaan ilan waa cadow cadaabanimadiisa ay caddahay xaaladaasaana loogugu talagalay alla ka cabsiga aan ku dadaalno haddana dhanka kalea la su'aalay waxa ugu badan oo ay dadka ku galaan jannada waa maxay waa cabsi allay dabeecad fiican buu dhahay sala allahu calayh wasalam waa labada ugu badan oo ay dadka jannada ku galaan waa dhowrsasho waa xumaan layska ilaaliyo waa alla oo laga cabsado iyo akhlaaq iyo dabeecad fiican oo ummaddan lagula dhaqmo ummaddan waa inaad kula dhaqmi kartaa bulshada dabeecad wanaagsan ma gaarsiin kartaan hantidiiniiyo xoolihiina war waxay rabaan baahi ma tiri kartaan war wax allaala waxay u baahayin qof baahi tiri kara waa allah ee ummadda waxaad kula dhaqantaan weji furfuran waxaad kula dhaqantaan bashaashnimo waxaad kula dhaqantaan dabeecad fiican waxaad kula dhaqantaan akhlaaq wanaagsan taasaa ummadda la gaarsiin karaayo taa aan gaarsiino taa ummadda aan kula dhaqanno walaalayaal annagu ma naqaano si rabbi looga cabsado ummaddii akhlaaq fiican kulama dhaqanno xaggee u soconaa ummade wixii ugu badnaa ee jannada lagu gelaya alla ka cabsigaa gadaal baa laga tuuray wixii ugu badnaa ee jannada lagu gelaya dabeecad fiican ahaydna tiina ma hayno maxaa janno ku gelaynaa maxaa ilaahay noogu gargaara subxaana wa tacaala cabsi alleh iyo dabeecad wanaagsan
alla ka cabsi iyo akhlaaq fiican ninuu la dardaarmayo ku yidhi alla ka cabsa meel allaala meeshaa joogto masaajid baan ku jirnaa buu kugu jawaabayaa suuqa markaad uga dhahda ilaahay ka cabso dukaanka asagoo xumaan iyo waxyaabo kale ku jira xaaraan iibinaya haddaad dhahda ilaahay ka cabso masaajidada la tag buu kuugu jawaabayaa teena caasiyadee magaalada maraysa afka casaanka marsatay diraca khafiif ka wadataa rabbigaa ka baq haddaad dhahdo masjidka la tag bay ku leedahay alla ka cabsiga war ilaahay ka cabsada meel allaala meeshaad joogtaan nebigaa ku dardaarmay sala allahu calayh wasalam haddaad guryihiina joogtaanna ilaahay ka cabsada haddaad masaajidada ku jirtaanna alla ka cabsada haddaad gawaari saarantihiin ilaahay ka cabsada haddaad meheradihiina joogtaan ilaahay ka cabsada meel walbo aad joogta rabbigaa ka baq hadday xumaani kaa dhacda buu dhahay nebiga aadami baa la yahee bani aadam baatoo waad qaldami kartaa iyo xumaan raacsa ay kaa dhacdo wanaag raacsii war towba raacsii war alla ka cabsi ka dabageey way kaa tirtiraysaa way kaa masaxaysaa waa nimcada ilaah subxaana wa tacaala wax xun hadday kaa fagtaan ilaahayow dheh wax xun hadday kaa soo baxsaan allow ii dembi dhaaf dheh wax xun hadduu afkaaga soo boobo xaaraana ilaahay u carar way kaa tirtiraysaa midda saddexaadna ummadda la dhaqan dabeecad fiican saddexdaa buu kula dardaarmay sala allahu calayhi wasalam meel kasta waa inaan ilaahay uga cabsanaa xumaan haddee naga dhacdo waa inaan say noolaga tirtiro tooba ka dabageynaa haddii aan bulshada iyo ummadda ku dhex jirnana waa inaan akhlaaq fiican kula dhaqannaa waa inaan weji furfurnaan kula dhaqannaa waa inaan bashaashad fiican kula dhaqannaa waa inay ummadduna jeclaadaan waa inay ummadduna soo dhoweeyaan waa inay ummaddu noo xiisaan waa inay ummaddu aad iyo aad ay u noqdaan midka hadka hadalkiisa iyo waxyaabihii ila joogitaankiisa la weheshto taana waxay ku imaan kartaa waa khuluqda fiican waxay ku imaan kartaa waa dabciga wanaagsan waxay ku imaan kartaa khayrkii wanaagga alla ka cabsiga walaalayaal xaaladda noocaasa waaye aad iyo aad aan ugu dadaalno dardaarankaa ilaahay ummadda u dardaarmay waa alla ka cabsigii aan aad iyo aad ugu dadaalno wasiyadaa iyo dardaarankaa nebiga ummaddu u dardaarmay waa alla ka cabsigii aan aad iyo aad ugu dadaalno waxaan isku dardaarmaynaa waa alla ka cabsi dhammaanteen waxaan isu dardaarmaynaa waa ilaahay in laga baqo subxaana wa tacaala waa in diinta islaamka loo hoggaansanaadaa waa inaan isi sallimi karnaa oon isdhiibi karnaa rabbigeenna isu dhiibnaa subxaana wa tacaala ilaahay baa nebi ibraahim la hadlay oo yidhi aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin war ibraahiimow isi salim war ibraahiimow isdhiib war ibraahiimow rabbigaa isu dhiib qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin haddaan isdhiiba maxaan helayaa haddaan rabbigu islaamo maxaa ii faa'iida ah maxaa iga soo gelaya ma dhihin id qaala lahu rabbuhu aslim rabbigii baa dhahay aslim war hoggaansan ibraahiimow war isdhiib qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin caalamka oo dhan rabbiga khalqaan isu dhiibay buu yidhi wawasaa biha ibraahiimu baniih ilmihiisuu u dardaarmay yacquub buu u dardaarmay ilmahaygiiyo buu yidhi ilaahay diin ayuu idin doortay ina allaha astafaa lakum uddiin war diin la-aan ma tihiin walaalayaal diinta tan ugu saraysa waa diinta islaamka taasaa alla idin doortay diinta ugu akhlaaqda fiican waa diinta islaamka taasaa alla idin doortay diinta ugu cadaaladda badan waa diinta islaamka taasaa alla idin doortay diinta ugu nadaafada badan waa diinta islaamka taasaa alla idin doortay subxaana wa tacaala ina allaha astafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoon muslimiin ahayn si fiican buu ula dardaarmayaa diinta islaamkuu fahamsiinayaa khayrka iyo wanaagguu tusaalaynayaa xaaladaha waa xaaladaha ugu wanaagsan waxaan isu dardaaranno walaalayaal khayrka ha noqdo waxaan isu dardaaranna xaqa ha noqdo waxaan isu dardaaranna sabirka ha noqdo waalcasri ina alinsaana lafii qusrin casirka markuu alla ku dhaartay kadib wuxuu tilmaamay insaanka dhammaantii inuu wada khasaaray war waa la khasaaray dhammaan oo wax faa'iiday ma laha war wax tijaaro ku faa'iiday ma laha war wax ganacsi ku faa'iiday ma laha ila aladiina aamanuu intii alla rumaysay maahane intii iimaan dhaba laga helay maahane intii ilaahay xaqiisii diintiisii rumaysay maahane ila aladiina aamanuu kadibna wa camiluu saalixaati camal fiican qabtay camalkay qabteen waa camal saalixe camal xun ma qabanin camalkoodu camal bidci khuraafaadoo meel laga keena aan la aqoon ma ahe waa camal nebiga looga dayday sal allahu calayh wasalam waa camal ikhlaasii alla dartii loola jeeday ila aladiina aamanuu
وcamiluu الصاalixaati kadibna watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالصabri xaqa iyo sabirka isu dardaarmay xaqay isu dardaarmeen gobolkood ayaa gobolka kale xaqa u dardaarmaya xaqa mee xaq daran isku dardaaranaa xaqii maanta aaway yaa yaqaana xaq wax la yidhaahdo famaada bacda alxaqi ila الضalaal walaalayaal xaq maxaa ka dambeeyoon baadi ahayn warkii xaq diida baadi buu rabaa warkii xaq diida xumaan buu rabaa warkii xaq aan rabin waxyaabo kalu doonayaa saa darteed buu ilaah leeyahay watawaasaw bilxaqi xaqay isu dardaarmeen haddana sabirkay isu dardaarmayaan gobolkood gobolka kale kelimada xaqee tawxiidkay isu dardaarmayaan midkoodka kale inuu xaqa gutuu dardaarmayaa xaqana laku leeyahay inaan gudanaa naloo dardaarmayaa diinta islaamku waa diin wax kasta iyo qof walba xaqiisa siisay gabadha xaqeeday siisay ninka guursanaya xaqi baa la siiyey gabadha la guursaday xaq bay leedahay iska daa wax kale maalin buu rasuulku soo maray saxaabadoo waddada fadhisa istaagoo ka kaca buu yidhi waxaan idinkaga digayaa waddooyinka inaad fadhiisataan waa lagama maarmaan inaan fadhiisanay dhaheen rasuulkii allow kama maarmi karno rasuulkii allow waa majaalisteena allaan ku xusnaa waan isxasuusinaa guryo qolqol ahay degan yihiin in badan dadku ma soo fadhiisin karaa saa darteed meelahaasaan isaga sheekaysanaa xaqa iyo wanaaggaan isu dardaaranaa rasuulkii allow noodaa inaan jidka fadhiisano haddaad iga diideen ilaa fadhi maahee wax kale facdu ariiqa xaqa jidka xaqiisa siiya xataa iska daa wax kale waddada xaqa la siiyey jidka aan ku socon xaq bay islaamku siiyey shimbirihii wax allaala wixii ka soo haray dawaabtii duurjoogtii bani aadam iskaba daaba waddadaa lagu soconaya qashinka lagu tuuro waddadaa lagu soconaya dadkuay ku dul socdaan baa islaamku xaq siiyey maxaa dhimanoo islaamku ka tegey waxa ka dhiman oo aan ku dhammaystirayna maxaa waaye walaalayaal waxa ka dhiman ee aan isleenahay waxaasaa islaax iyo wanaag aan u weynay oo diinteennii ka la'nahay maxay tahay jidka haddii xaq la siiyo walaalayaal waddadaa haddii xaq la siiyo waxa kaloo islaamku ka dhiman ama uu ka tegay maxay tahay jidka xaqiisa siiya qaaluu wamaa xaqu ariiq yaa rasuula allah jidka xaqiisa muxuu yahay rasuulka ilaahayow waa haddii aad fadhiisanaad indhaha laabto waa indhaha oo la laabo waa salaantoo la ridiyo waa dhibkoo laga celiyo waa ummadoo macruufka la amro munkarkana laga reebo buu dhahay sala allahu calayh wasalam intaa haddaad samayn kartaa waddooyinka fadhiista haddaadan samayn karin soomaa qaladiina aada walaalayaal yaa indha laaba tii soo martaa mar allaala markaan saan u eegnayna gudubtaan gadaal u fiirina haddana xaaladaasaan maraynaa waxaa dadka qaarkood iyo dhallinyarada gobol ka mid bay u fadhiistaanba inay daawadaan dumarka meesha maraaya wainaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun war ilaahay maa laga cabsado war taqwadii alla ka cabsiga maa lagu dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisu wuxuu noo tilmaamayaa jidka haddaad fadhiisanaysaan xaqiisa siiya oo indhihiina laaba dadka salaamta ka qaada mar allaala markay idin salaamaan oo assalaamu calaykum laydin dhaho wacalaykum assalaam ugu jawaaba dhibka ka daaya dadka ha ku qaylinina buuqii dhibaatada ka dhaafa dadka maray dhagxaan ha ku tuurinina ha ku foorinina waxaasoo dhan ka daaya oo dhibka ka celiya sidaa darteed macruufkana amra munkarkana reeba haddaad ku aragtaan qof xumaan samaynaya si fiican ula hadla haddaad aragtaan qof qutaaco ariiqoo waddada ummadda ka xayiraya si wanaagsan ula hadla intaa haddaad samayn kartaan walaalayaal waxaana loo tilmaamayaa ina saa yeelda sidaa darteed ayuu ilaahay tilmaamayaa ibraahim markuu nooga sheekaynayey inuu yidhi carruurtiisa ilaahay diin buu idiin doortaye falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowt mase shuhadaad ahaydeen xilligii ee yacquub geeridu ku soo xaadirtay carruurtiisii buu u wacay yaa baniya carruurtaydii buu ku yidhi mar allaala markay geeridu ku soo xaadirtay wuxuu rabaa inuu dardaaran u dhaafo wuxuu rabaa bal inuu ogaado imtixaan ka qaado wuxuu rabaa bal inuu fiiriyo heerka ay gaarsiisan yihiin ilmahaygiiyow maxaad caabudaysaan min bacdi ani gadaashay war waa dhiman rabaa waa idinka tegi rabaa maxaad caabudi doontaan war haddaad dhinto maxaa ilaah idiin ah war haddaad dhinto maxaa diin idiin ah maxaad caabudaysaan min bacdi jawaabtooda fiiriya qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida waxaan caabudaynaa ilaahaad caabudi jirtay waxaan caabudaynaa aabbayaalkaaga ilaahooda waa ibraahiim ismaaciil iyo isxaaq ma aha ilaahyo badana ilaahan waaxidan hal ilaah baan caabudaynaa allahaasaan noo hoggaansannahay allahaasaan u hoggaansannahay allahaasaan ikhlaas u nahay allahaasaan u go'sannahay
allahaasaan caabudaynaa aabbe asagoo deggan oo maskaxdiisu qataam tahay oo ku faraxsan buu qabrigiisa aaday sidaa darteed walaalayaal dardaaranku waa shay muhiim ah waa arrinta laysu dardaarmo khayrka iyo wanaagga waxa laysu dardaarmay u fiican tahay alla ka cabsiga waxa laysku dhaafay u fiican tahay ilaahay ka cabso dad baa ummadda waxaa ugu neceb qofki yidhaahda ilaahay ka cabso wuxuu ummadda ugu necbay qofki ilaahay xasuusiya waayo wuxuu rabaa xaaraan kasta inuu galo wuxuu rabaa wuxuu doono inuu cuno wuxuu rabaa suu doono inuu u socdo wuxuu rabaa suu doono inuu u hadlo walaa saan doono yaanan u hadlin ee sida ilaahay doono aan u hadalna subxaana wa tacaala war ilaahay suu raba aan wax u samaynaysaan annaga rabnaan iska dayno waayo tahayna qiimo ma laha waxaan annagu jecelnahay wax fiican ma aha bani aadamka in badan bay xumaantu jecel yihiin nafsadu la ammaara bisuu xumaantay in badan ummadda amartaa waxa ku hogaamin kara diinta islaamka ha ahaato waxaad raacaysa ilaahay aayadihiisa ha noqdo waxaad ku dayatood ku fiicnaanayso waa aayaadka ilaahay xaaladda aan ku dadaalno oo rabbi aan ka cabsano oo khayrkii wanaagga aan ku dadaalno alla ka cabsiga in badan bay fuqahadiiyo culimmada badankooda isku dayeen inay bal wax ka cabiraan qolaa waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa jaliilka oo laga khawfo waa ilaahay subxaana wa tacaala waa in mar walba ilaahay kula weynaadaa waa in mar walba ilaahay subxaana wa tacaala aad ogaata raqiib inuu yahay dushaada ilaaliya ka ah inaad mar kasta ogaato inuusan rabbi ku faaruqay inaad mar kasta ogaato waxaad siriyaysanayso iyo waxaad muujisanayso labadaba inay ilaahay isugu mid yihiin subxaana wa tacaala waa inaad ogaato ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa awooddiisa intaasoo dhan waa in aad ay kula weynaato oo aad ogaataa taasaa waxay kugu kalifi kartaa inaad rabbigaa ka baqdo subxaana wa tacaala taasaa waxay kalifi kartaa wax badan oo aad samayn lahayd oo dembi ah oo xaaraan ah oo xumaan ah inaad markaa ka fogaato taasi waa lagama maarmaano in qofka uu ka qawfo ilaah subxaana wa tacaala waxay ku fasiraan oo kale qofku inuu qanaaco la yimaado ee uu ku qanaaco qaato wax allaala wuxuu ilaahay siiya subxaana wa tacaala ha hanqaltaagina walaalayaal wuxuusan rabbi idiin qorin heli maysaan subxaana wa tacaala wuxuu rabbi idiin qorina idin dhinac mari maayo shilin adi aad leedahay qof kala qaadan maayo wuxuusan ilaahay kuu qorin haddaad xaaraan ku raadiso iyo haddaad xalaal ku raadiso labadaba heli maysid saa darteed waa inaan aayarayno waa inaan mar walba khayrkii wanaagga ku dadaalno waa inay qanaaco nagu jirtaa waa inaan ku qanci karnaa wuxuu rabbina siiye subxaana wa tacaala xabad rootiya maanta haddaad ku qorcato inaad qanaaco ku qaadataa waa inaad isku aragtaa inaad ummadda ugu sarrayso waa inaad isku aragtaa ilaahay mahad badan oo weyn inuu kugu leeyahay waa inaad isku aragtaa laakiin maalin walba haddaan ashtakoono maalin walba haddaan ilaahay ka sheegano maalintaan kumaan helno iyo maalintaan kow helnaba hadday sukaayo mid noqoto oo rabbigeen ashtako un aan 24 saac la dul taagannahay suuq baa nagu jabay saasaa nagu dhacday abaar baan ku jirnaa balaayaa nagu habsatay haddiiba alxamdulilah nala ka waayo walaalayaal faa'iida qiimo ma lihin lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad igu shukrisaanna haddaad igu shukrisaanna waan idin kordhin buu dhahay ilaahay haddaad igu kufrisaanna cadaabkaygu waa shadiid xoolaha faraha badan ee lagu siiyey ee aad ku kufrisa laftigooda lagugu cadaabi karaa ayaga laftigooda ilaahay ummadda ku cadaaba subxaana wa tacaala imisaa lagu cadaabay meeqaa lagu baabi'iyey meeqaa lagu halaagay hantidoodii xoolahooda walaalayaal waa waxaan cadad iyo tiro lahayn sidaa darteed aan rabbiga caabudno aan taqwadii alla ka cabsiga ku dadaalno aan noqono ummad qanaaco leh oo qanaaco qaadataa oo in badan ilaahay u mahdisaa waxa la siiyey ha u yaraato ha u badnaato ummad raali ku noqota ilaahay aan noqono subxaana wa tacaala waxay kaloo tilmaamaan oo lagu fasiraadaa la yidhaahdaa waa inaad ku camal fashaa kitaabka la soo dejiyey subxaana wa tacaala waa camalfal maxaa lagu camalfalayaa tansiilka kitaabka alla noo soo dejiyey muxkamkaa subxaana wa tacaala wax ka maqan malaha danaheeni waa noo daboolay baahideeni wuu noo asturay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina yuhuuddaa majeersan jirtay aayadda aad iyo aad bay ugu faraqaniini jireen cumar intay u yimaadeen bay dhaheen aayad kitaabkiina ku jirta haddii nala ku soo dejin lahaa haddaan macsharta yuhuud nahay wallahi waan damaashaadi lahayn feestaanu ka dhigan lahayn waan ciidi lahayn bay dhaheen ay aaya buu yidhi waa aayadee alyawma akmaltu lakum diinakum waa nin yahuudiya walaalaya wuxuu tamaninayaa diinteena wuxuu jeclaysanayaa aayada qur-aanka ka mid ah wuxuu aad yaad u tamaninayaa xukunkii dastuurkii axkaamta iyo diinkii qur-aanka aan haysano in lagu soo dejin lahaa waayo wuxuu ka arkay dhaqanka saxaabada
wuxuu ka arkay say diinta ugu toosan yihiin. waxaan tamaninaa bilcagsi waxay haystaan, wiilkooda waxay haystaan baan tamaninaa, wiilkeena dhallinyaraha say jeegada u xirtaan bay dhallinyaradeena u xirtaan. fiiri dawaaryadii meelaha laga tolo dharka ee haweenka iyo dumarka, buugaag baa taala ayagaa ku sawiran, goonadu say u jeexaan bay kuweena u jeexaan, say u tashtaan bay u tashaan, say u dalbadaan bay u dalbadaan. markii horena diinteenay tamanin jireen, annagay noo soo faraqaniini jireen. waa aayadee alyawma akmaltu lakum diinakum. war naga tag buu dhahay cumar, waa kaa naqaanaaye. war aayadda waa naqaanaa, xilligay soo degtaan naqaan, sababtay ku soo degtaan naqaan, nebigu markuu ay ku soo degayso meeshuu taagnaa baanu naqaanaa. war annakaa kaa naqaana, diinkeena na beri maysida naga tag. xaaladda noocaasaa loo baahan yahay walaalayaal. waa inaan noqon karnaa dad diintooda wax ka yaqaana, waa inaan noqon karnaa dad qur'aanka wax ka yaqaana, waa inaan qur'aankeena ku faannaa, waa inaan qur'aankeena akhrinaa, waa inaan qur'aankeena tafsiirkiisa baranaa, waa inaan wacaanadiisii waxa uu sheegayo ogaanaa. waa lagama maarmaan dhallinyaroy. dhallinyarada muslimiinta maanta joogtoo doorkiina la marayaa. in badan baa ka soo baxay waajibkoodii, kuwo fara badan baa adduunka soo maray, qaar baa la jarjaroo la googooyey, qaaraa ilaa hadda meelay jiraan la la'yahay. intaasi inay diinka rifaacaan, inay islaamka kor u qaadaan, inay ummadda ka bixiyaan addoonnimaday addoommada addoommo u yihiin, ay u bixiyaan ilaa cibaadati rabbi alcibaad. walaalayaal, xaaladda noocaasa dadaa ahaa, xaaladda noocaasa dadaa xaalkoodu saa ahaa. waxaan isku haysanaa waxaan qiimo lahayn. dhallinyaradii waxay 24 sac ka fakeraan waxaan qiimo lahayn. dhallinyaradii waxay 24 sac maskaxdooda ku jira sidii loo qaadi lahaa, siday u dhoofi lahaayeen, say meel kale u aadi lahaayeen. xaaladahaasoo dhan bay arrintii isugu timid. in badan rabbi ha la caabudo, wax badan khayrkii wanaagga ha laysku dardaarmo, ilaahay awaamirtiisa ha la fuliyo, daacaadka ilaahayna yaan la dhinac marin. sidaa darteed ayuu ilaahay ayay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa ku camalfalka kitaabka. qaybta ugu dambaysa oo ay ku fasireen taqwada waxaa ka mid ah alisticdaad, waa diyaargarow. in loo diyaargarowo maalinta geediga. geedi baan nahay walaalayaal, adduunka geedi baa lagayo, waa laga guurayaa, waa laga guuraa. daar adduun oo daar aakhiraa loo guura. war gurigaagaa lagaa bixinaa oo qabri baa lagu geyna. war ilmahaagaa lagaa dhex bixinaa oo cidlaa lagu dhigaa. war hantidaadii xoolahaagaa lagaa qaadaya oo waxba aan oon baa lagu geynaa. saa darteed aan ku xisaabtannoon ogaano inaan meeshaa geedi ka nahay, inaan gurigaa ka guurayno, inaan meel kale u socono. daartaan inaysan ahayn daarta qaraarka ah, inaysan ahayn daarta sugnaanta ah. ummadda ugu wacno. nin dadkii hore ka mid ahay rabbi kitaabkaad ugu ammaanay, rajul mu'mina oo iimaankiisii qarsanayey. fircoon qoomkiisii ka mid aasoo dadkiisii waaninayo yidhi yaa qawmi maa lii adcuukum ila annajaat. war qoomkayo maxaa dhaco najaad idinkugu waca? mar walba badbaadaan idinkugu wacayaa, watadcuunanii ila annaar. naar baad iigu wacaysaa, naar baad ileedihin kaalaya imaada, anna waxaan idinkugu wacayaa badbaadada. wayaa qawmi maa lii adcuukum ila annajaat watadcuunanii ila annaar. naar baad iigu wacaysaan, tadcuunanii liakfura biاllah, inaan ilaahay ku kufriyo oon u shariig yeela wuxuuse waxaan cilmi ogaal u lahayn ayaad iigu wacaysaa. wa ana adcuukum ila alcasiizi alghafaar, allaha casiiska ah dembi dhaafka badan jidkiisaan idinkugu wacaya. allahaasaan idinkugu wacaya idinleeya kaalaya caabuda, war kaalaya khayrkanii wanaagga ku dadaala. wa ana adcuukum ila alcasiizi alghafaar laa jarama ana maa tadcuunanii ilay laysa lahu dacwa fi اdunya walaa fi اlaakhira. waxaan aad iigu wacaysaanoo qoryaha ah, dhagxaanta ah, hawe la caabudo ah, maado la caabudo ah, qubuur la caabudo ah, wax allaala waxa noocaasoo kalood iigu wacaysaan. waxa xaqiiqaha laysa dacwo inaysan lahayn adduun iyo aakhira labadaba. meeshaan u noqonayna maradkeena waa ila allah. musrifiinta waa asxaabu الnaar, fasatadkuruuna maa aquulu lakum. waxaan maanta idin dhahay waad xasuusan doontaan buu yidhi. maalin aan maantayn baad ogaan doontaan, maalin aan maantayn baad ogaan doontaan. fasatadkuruuna maa aquulu lakum. waxay damceen inay dilaan. wa ufawidu amrii ila allah, amarkayga allaan u bandhigtay buu yidhi. ilaahay ayaan u bandhigtay, ilaahay addoommada waa arkayaa. fawaqaahu allah sayi'aati maa kasabuu. wax allaala wixii ay kasbeen oo ay sameeyeen ay camal qabteen, xumaanteedii buu ilaahay ka badbaadiyey subxaana wa tacaala. xumaanteedii buu ilaahay ka badbaadiyey, makrigoodii buu alle ka koriyey subxaana wa tacaala. aan xaaladaa noqono,
aan diyaar garowno aan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa isu dardaaranno aan iimaanka la nimaado iyo camalka saalixa ah xaqa aan isu dardaaranno midda ugu dambaysana watawaasaw bisabri sabarka waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood walaalayaa midna diintaa lagu sabraa fadhiga masaajidkaa lagu sabraa xaqay wanaagga dhegaysigiisaa lagu sabraa ilaahay wax allaala wuxuu khayrkii wanaagga ka dhigay ajirka laga helaya lagu sabraa midna waxaa laga sabraa macaasida waayo naftaa aad u jecel wax badan bay jeceshahay inay iska socsocotay dhaqdhaqaaqday masaajid fadhinin wax badan bay jeceshahay inay iska tumatay raaxaysato wax badan bay jeceshahay shahawaadka inay iska raacdo waa laga sabri siiyaa waa laga xabisaa walaalayaal waa laga xiraa oo waa laga xabisaa midna masaa'ibtii dhibaatooyinka adduunkaa lagu sabraa haddii ilaahay wanaag ku siiyana waa lagu shukriyaa haddii imtixaan lagu saarana waa la sabraa waa qaybta 3aad waxaa lagu sabraa waxyaabaha dhaca waxaa lagu sabraa masaa'ibta imtixaamaadka yimaada waxaa lagu sabraa dacwada waxa kaa soo gaara waxaa lagu sabraa cilmiga aad baranaysa waxa kaa soo gaaraya tacab iyo dhibaato ah mashaakilaadkaasoo dhan waa lagu sabrayaa walaalayaal waa shay muhiim ahoo aad iyo aad loogu baahan yahay waayo sabirku wuxuu noqonayaa farajka miftaaxiisa sabirka ayaa wuxuu la jiraa mtaqaanaa farajka mar allaala markaa sabartaa ilaahay faraj iyo kurbo kaa qaadaya dhibaatana kaa faydaya gabarh saxaabiyad ah ayaa canug yar oo ay dhashay ka sakaraaday ama ka xanuunsaday abi talxaa dhalay mar allaala markii cabbaar uu xanuunsanaa buu aabbihii baxay say axaadiistu tilmaameen mar allaala markuu baxay intuu maqnaa ayaa canugii la qidooday naftii baa ka baxday umusuleem maxay samaysay intay soo qabatay kii yaraa meydkiisay hagaajisay meel geesa dhigtay oo guriga ka mid ah oohin ma laha argagax ma laha ba'ayay ma laha go-ayay ma laha ilaahay bay taqaanaa subxaana wa tacaala weliba dariskay la hadashay tiri cid u sheegi karta abaa talxa canugiisa inuu dhintay ma jiro ilaan aniga u sheego anaa u sheeganaya ninkeygay faraha ka qaada bay tihi dariskii bay la hadashay dadkii meeshay la hadashay cabbaar buu maqnaaday waa yimid waa wiil waa aabbe canug ka xanuunsanaaye salaan kadib buu dhahay maa facala ibni canugaygii see noqday war iiga warrama keygii yaraa see noqday waxay tihi waaskana maakaan intuu hadduu ka xasilan yahay canugu waa xasilay wuu degay waxay ula jeedaa dhaqdhaqaaqii xarakadii baa dhaato naftii baa ka baxday wuxuu u qaatay canugu waa xasilay u hurday waa say rabtay ayada waa sidii ay rabtay inuu u fahmo intuu ahaa hadduu ka xasil badaya bay tihi hadduu ka deganaan badanya canuga yar hadduu ka degay canuga yariiska ah mar allaala markii intaa ay samaysay cashadii ay ugu talagashay u keentay sharaabkii wuxuu cabilaaya ugu talagashay u keentay waa casheeyo wuu sharaabay kadib bay baxday waxay isku qurxiday habeenkaa sida ay habeenada kale isu qurxin jirtay si ka qurux badan oo ka udgoon badan oo ka caraf badan markuu arkay inantu inay dhalaalayso ayna udgeyso waa kaxayso sariirtuu la aaday wax allaala wixii mucaamalaad ah oo nin iyo naagtiisa dhex mara markii ay dhex mareen oo ay aragtay jaanib kasta inuu ka dhargay caanihii uu ka dhargay cashadii uu ka dhargay ayadii uu ka dhargay ayay tihi soo dhowow su-aal baan ku weydiinayaaye ka warrama qoom hadday caariye qaataan oo ay qoom ka soo caariyeystaan caariyo ka bacdina caariyadoodii ay ka soo codsadaan ay dhaan digsigaan idin siinay aad naga soo daba caariysateen na siiya ama alaabtii kale keena alahum an yamnacuuhum miyay u diidi karaa qaala laa maya buu yidhi markaasay tiri ixtasib ibnika ajirka cunugaa kii ajir xisaabsan waaye caariyu ah shalaa ilaahayna siiye subxaana wa tacaala maantana ilaahay baa qaatay subxaana wa tacaala waa qiso aad iyo aad u dheer oo cibro fiican leh saa darteed walaalayaal watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri gabdho iimaan badan bay ahaayeen gabdha diinta alla ku xihan bay ahaayeen hamigooda dahab ay farta gashtaan ay qoorta gashtaan ay dhegaha gashtaan ma ahayn ta jannaday ka fakeri jireen walaalayaal kuweena waa la dhaqi la'yahay kuweena wax kastay kuu haystaan sabir ma laha dulqaad ma laha alla lama yaqaano 5 salaatiidu kataaba khayr wanaaga maalinta maalin kasta haddii gadaal loo sii raaco waa 3 ila wax ka baxsada salaadaha waa 4 iyo 5 qaara laga yaaba 3 maalmood inay ka tagaan dad diinad ma banihinba maxaana loogu gargaar la'yadaa leenahay maxaa ilaahay noo nasri leeyahay leenahay gabdhaha noocaas fiiriya habkay xaaladooda hayd fiiriya gabadha hadda aan tilmaamayno iyo ninka xaaladaha iyo waxa wanaaga dhex maray maxay sabab ku noqotay maxay ku timid sidee ninka ku soo islaamay qisada hadii dib loo sii raaco waa wax ku fajicinaya waa wax ka yaabin kara mar allaala markuu doontay tiri mushrik baatay markii hore islaam ninka ugu hanti badan waa magaalada Madiina asaa ugu xoolo badnaa qaasatan timirta geedaha asaga ugu badnaa dadka hantiilayaashu ku jiray aad buu la yaaba markay diiday
wuxuu is yidhi nin kale oo kaa hanti badan amuu jiraa magaalada maskaxda la raacay oo yaa waay mid kastaa laga yaabay inay gabadha ogolaato mawjaduu la haysta maba ahanba adduun kaleu la haystaa hanti iyo xoolo iyo waxbuu fiirinaa ayaduna meel kale wax ka fiirinaysaa alla agtiisa wax yaalay fiirinaysaa mushrik baatay tiri haddaad islaamto wax galoon kaa raba ma laha aad buu ula yaabay waa fajacay waa fikiray kelimada tawxiidku u qiray way soo kaxaysay nebigay u keentay sal allau calayh wasalam waxay ku tiri agtiisa ku qir rasuulka waa qiray oo kelimada tawxiidkuu ku qiray rasuulkii allow markhaati ka noqo meherkayga waa islaamnimadiisay tiri kuweena saa ma yihiin maanta mid kasta midka kale intuu ka hanti badan yahay ka lacag badan yahay ka dollar badan yahay ka waxa badan yahay haddana haddii la dhaqmi lahaba qaateen waxbay ahaan lahayd haddayba dhaqmi lahaayeen waxbay noqon lahayd dhaqanna ma jiro wixiina way qaateen diinna laguma socdo gabdhaha niman gaala ah ayay guurkooda sabab ugu noqdeen inay ka soo badbaadiyaan dhuxulaha naarta waa guurkooda dacwo noqday walaalayaal guurka ay guursanayaan bay u isticmaalayaan diinta islaamka ay u isticmaalayaan inay ragga soo hanuuniyaan ay gaalnimada ka soo bixiyaan ay khayrkii wanaagga ku soo dabaalaan caawa gabar doona bal su-aasha ugu horaysii tan labaadee ku weydiinaysa waa qabiilkii dollarka meel ku yaala mid ku dhahaysa mala salaada ma tukataa yaa la yidhi weli annaga naga mid ah hor yaa la yidhi waa ma jiro bacdamay xaaladdu saa tahay walaalayaal aan noqono dad islaam ah oo ahludiin ah oo ahlu khayr ah oo taqwo iyo diinihii alla ka cabsi ku socda alla ka cabsiga waa muhiim alla ka cabsiga waxyaabaha ilaahay dadka khayrka ku siiya subxaana wa tacaala haddaadan taqwo lahayn haddaadan alla ka cabsi ku sugnayn haddaadan diin islaam iyo wanaaggeeda ku sugnayn ogow alla ka cabsi la-aan inuusan waxba kuu hagaagaynin wax kasta way kaa kala furfurmayaan waxaad isku keenta dhibaatun baad kala kulmaysaa si kastoo adduunkii suu kaa kaco oo suu kaa kor noqdo xataa wabaal iyo hoog iyo khasaaro iyo ba'baa u dambeeya xaaladahaasoo dhan inaan ku xisaabtanno waa lagama maarmaan aasaaskeena alla ka cabsi aan ka dhigno inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إيمان يا ليرهذا وريا إيمان له مؤمن يا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إله باطل شيء قلبي صعب سنايا قلبي مرره ما أنت ولا ليا قلبي حارن كبح سيء قلبي حقدي حمام بفريستي qalbigii qabyaaladii xumaan baa dhex fadhiisatay qalbigii mashaakil badan baa dhex fadhiistay waaladiina idaa dukira allah ilaahay bay kor ka maqleen wajilad quluubuhum waa cabsanayaan qaarkood qaaraa aayad qur'aan inta lagu dul aqriyo istaagga ka dhici jiray walaalayaa cumar baa maqlay asagoo ama aqriyey ama maqlay ayadoo waduur la aqrinaya ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic meeqa maalmood buu dhulka yiilay meeqa maalmood baa la booqanaya cadaabki ilaahay waa dhaca wax celinaayana ma jiro faidaa nuqira fi naaquur nin baa akriya wuu dhacay famaa waa dhintay inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum quluubtooda cabsanaysa nebigaa salaaduu istaagay in tucadibhum fainahum cibaaduka waa dhaafin waayey sal allau alayh wasalam ilaa waagu ka bariyo ayadaasuu ku celcelinaayey qur-aanka xaggee naga maray qur-aanka xaalkiis muxuu yahay walaalayaal afa min hada alxadiid xadiiskan iyo qur'aankan miya tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun mala yaabantiin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ma qoslaysiin ma oynaysaan miya haddii la akriyo ma oynaysaan miya haddaad akrisaan ma ku tadabburaysaan miya haddaad akrisaan kuma camal falaysaan miya afa min hada alxadiidi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun ma qoslaysaan oo ma oynaysiin miya wa antum saamiduun waad geeraaraysaan weliba waad heesaysaan weliba saamidiin iyo kaafiliin baa tihiin weliba saa ha yeelina qur'aankan haddii buuraha lagu soo deji laha way go'go'i lahaayeen walaalayaal haddii buuraha lagu soo dejin lahaa way jeexjeexmi lahaayeen haddii lagu soo dejin lahaa jibaasha si kaley noqon lahaayeen qur'aanku waa qur'aan mucjiz ah qur'aankii haddiina laku akhriyey oon weli sidaynii nahay ilaahay nala xasuusiye aan isbedeli la'nahay meyd korkeenna ka dhacay aan isbedeli la'nahay wax kastoo dhibaato dhacay aan sideennii nahay dadu xaggee u soconaa goormeesa layn helaynaa qur'aanku goormuuna jilcinayaa qur'aanku goormuuna noo noqonayaa midna naga dhiga kuwa jilicsanoo qaluubtooda iyo jirkoodii waxooda dhan jilciya qur'aanku waa inuu noqdo qur'aanna ta'fiirin kara qur'aanku waa inuu noqdo qur'aanna bedeli kara qur'aanku waa inuu noqdaa qur'aan aad iyo aad u qiimo badan qur'aanku waa inuu noqdaa qur'aan aad iyo aad u mucjizo badan rasuulka sal allahu calayh wasalam mar allaala markay geerida ku soo xaadirtay maalintii ugu dambaysay waa bixi waayey abaabakar amra buu yidhi dadka ha dujiye abubakar fara dadka imaam ha u noqdo caaisha waxay tihi yaa rasuul allah abubakar rajul raqiiqa waay
waa calool jilcan yahay. qur'aanku markuu akhrinayo oohinta ka qalib noqonaysa. safka kood meeka labaad ma maqalsiin karo, waa min albukaa, oohin daraadeed ma maqalsiin karo dadka. cumar amar asagaa ka kakane, war cumar amar asagaa ka xoog badane. cumar far rasuulkii ilaahayow abubakar ka bedel, waayo qiraaduusan dadka maqalsiin karin. waa calool jilcan yahay, waa beer jilcan yahay. ayadaha qur'aanka waa ta'fiirinayaa, markuu akhrinayo ma isdhaafsiin karo, oohin baa ka qaalib noqonaysaa. rasuulku wuxuu yidhi war caaishay abubakar amra dadka ha dujiye. caaisha way ku qanci weysay ilaa xabsay u tagtay, ay tira kaale rasuulka ka dhaadhici sal alla alayh wasalam, u sheeg cumar in lagu bedelo oo abubakar meesha laga bedelo. xabsaa timid, way u sheegtay ilaa rasuulku u dhahay sawaaxibtii yuusuf kalaatiin, war ordaha abubakar amra dadka ha dujiye, dadka ha dujiye abubakar radia allahu canhu. abubakar waxay ku tilmaamayaan nin aad iyo aad u ta'fiiriya qur-aanka inuu yahay. waxaa la tilmaamayaa inay xaaladii saartaa markii maka la joogay oo islaamkuu bidaaye ahaa, dhibaato fara badan buu la kulmay. abubakar mar allaala markuu qur'aanka akhrinayo dadkoo dhan way u imaan jireen, xataa dumarka mushrikaadka ah, ciyaalka saasay u dhegaysanayaan, waa wada ooynayaan. kadib bay yidhaahdeen nooga bax magaalada. abubakar waa laga saaray magaalada maka. abubakar way ka buriyeen, wuu ka baxay asoo iska socdaa nin mushrikiinta kamida ka hor yimid oo yidhi maxaa dhaca abubakar xaggee u socotaa? ee qowmkaygaan ilaahay ka caabudi la ahay, diintaydii baan saan doono ugu camalfali la ahay, adigoo kale qof la celiya metid buu yidhi soo bax. kafaaladeeduu ku joogaayo hala ogaado abubakar. abubakar nin taaban kara ma laha. intuu cijrigii saa ugu dawaafuu ugu wareegsaday buu dhahay aniga ayaa ximaayeeyey, anaa kafaaladeeduu ku joogaa, anaa magangeliyey, sidaa darteed waa in sidiisa loo dhaafaa. abubakar gurigiisu daashkiisu banaanka wuxuu ka dhistay meel ilaahay ku caabudo. qur'aankii buu akhrinayaa, salaadii buu tukanayaa. wuxuu ahaa nin oohin badan. mushrikiintii gabdhahoodii ciyaalkoodii meeshay soo istaagayaan, oohinta wuu oynayay la oynaya walaalayaa. oohinta qur'aankuu akrinaya mar allaala markay maqlaan tiibaa ta'fiirinaysa. way cabsadeen mushrikiinta, wallaahi waxay dheheen kan ciyaalkiiyo dumarku naga fidnaynaya, labadooduu naga fidnaynaya oo laga yaabo inay diinta markaa galaan. ninkii kafaalada siiyey ee madaxiisa uu ku joogay intay u tageen bay dheen laba mid, inaad ninkan kafaaladaada kala noqoto maxay tahay, ama inuusan banaanka usoo bixin oo gurigiisa gudaha ayadoon qofna arkaynu salaadiisa ku tukado qur-aankiisana ku akristo. waa soo baxayo waa u yimid, wuxuu yidhi dhegayso, qoomka waa ay dhibaataynayaan, waana adiga madaxaaga laba mid, inaan kafaaladeeda kaala laabta maxay tahay, iyo damiinta ani a kaa ahay, ama inaad joojiso waxaan aad wado, banaanka inaadan qur-aanku akrin, banaanka inaadan waxyaabo kale ku samayn, oo haddaad qur-aanka akrisaysa gudaha gasho kafaaladaada hoo buu yidhi. ilaahay baa kafiiligaa saacaddan wixii ka dambeeya, saacaddan wixii ka dambeeya kafaalada allan ku joogaa, qaada buu dhahay waxaaga, rabbigayna waan caabudaya, diinteedana akhrisanayaa. qiso dheer bay ahayd, say noqotaba walaalaya. qur'aanka waa qur'aan mucjiza, annagaana loo soo dejiyey, waa layskala xisaabtamayaa. qof kastoo qur'aanka aad iyo aad ugu dadaal. inta badan akrintiisa waa la bartay, badankeena waa laga yaabaa inay garanayaan qur'aankii, laakiin qur'aanku waa inuu noqdaa qur'aan ta'hiir leh, qur'aanna raadayn kara, qur'aan marka la akriyo aan fahmi karno on dareemi karno, qur'aan mar allaala marka la akriyo waxa aan ku jirno in badan oo kamida aan xasuusan karno inay xun yihiin, kadibna aan ka baxno, wax badan inay naga dhiman yihiin, kadibna aan usoo degdegno. inuu saa noqdo waa lagama maarmaan, inuu qur'aanku saa noqdo walaalayaal, markaas wax noo anfici, markaasuu rabbi subxaanaه watacaala agtiisa qeyr wanaag aan ka helaynaa. sida ilaahay tilmaamay subxaanaه watacaala, afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calىa quluubin aqfaaluha. dadka ma qur'aankiisaba ku tadabburinba, mase qalbigay ka qufulayin buu yidhi subxaanaه watacaala. qalbiga may ka qufulayin oo maba galamiya, mase maba ku tadabburaan. afalaa yatadabbaruuna alqur'aan, qur'aankan miyaysan ku tadabburin dadka, walow kaana min cindi gayri اllah, hadduu qur'aanku ka imaan lahaa cid aan alla ahayn agtiisa, lawajaduu fiihi ikhtilaafan kafiira, isbaranbaritaan, iska hor imaan fara badan baad ku dhex arki lahaydeen. qur'aanku inuu qur'aan mucjiz ah yahay, qur'aanku inuu ilaah xaggiisa ka yimid waxaad ku fahmi kartaa maalintii iqra la soo dejiyey iyo aayaddii ugu dambaysay inta u dhaxaysay ilaa zamanka aan hadda joogno. weligaa ma aragtay aayad la bedelay? waa ma jirto. mid si kale loo galay? waa ma jirto. mid la nasaqay? waa ma jirto. xaaladahaasoo dhan dhaqankii iyo dastuurkii iyo wixii aan daraa degsanay iyo wax allaala waxay bulshadii ku heshiiyaan, maalinba in baa ka qaylisa, maalinba in baa dhahda waxaan anagu ma rabno, maalinba in baa in ka mudaaharaada. waa wixii daraad iyo shalay ah, 2 bil kama soo wareegan. meeqa sana adduunka nala joogaa, meeqa sana ilaah subxaanaه watacaala dhexdeena yeelay. inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun. suu u xifdisanya laguu xifdinaya haddaad barato,
suu u qiimalaya lagu qiimaynaa haddaad barato, suu u sharflaya ayaa lagu sharfayaa haddaad ku dhaqantood ku camal fasho. wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun buu dhahay ilaahay. qur'aanku waa dikri, waa sharaf, waa waano, waa wacdi, waa xus aduu kuu yahay io qoomkaaga. dib dambena waa laga su'aali doonaa, qof walba waa la weydiin doonaa. dadoo dad quraameed aan noqono, dad diineed aan noqono, maalmahaan meersanayna keliya la akhriyaa oo culammada loo dhiibaa kutubaha iyo marka guri cusub la furahayo. beryahan gaawaari marka la soo gataa lagu soo daray wax kale oo mtaqaanaa hadda ziyaado ah oo xaggeena uu ka sariy ka yahay qur'aankii ma jiro. aaway tadabburkiisii, gabadhii guriga joogtaa way qaawan tahay, wiilkii waxa waaye wuxuu ku dhex jiraa waxyaabo xumaan ah, gabadhii maba loo talin karaba, odaygii iska badaaba, wax uu ku sugan yahay wax kale lama yaqaano. xaaladii saasay noqotay. idan qur'aanka qur'aan dhaqan baa loogu talagalay, aqalada in lagu nooleeyo lagu iftiimiyaa loogu talagalay. guryaha baqara lagu akriyo shayطaanku ma soo gala buu dhahay nebiga sal اله عليه wasalam. qur'aanka guryaha ku akriyo, guryaha qubuuraha ka dhigina. salaadaha gobol ka mida guryaha geeyo ku tukada, khaasatan sunnooyinka guryaha qubuuraha ka dhigina. xaaladahaasoo dhan maxaa loo samaynaya? gurigu inuu barakoobo, gurigu inuu barako yeesho. suu ku barakoobaya guri aanba weligii lagu tukanin. salli guryaha qaarkood ma yaalo. guryaha qaarkood markaad isdhahdo qur'aan akhrisood u martido waxaa laga yaaba in dariska lagaaga doono kitaabka qur'aanka ah. dad heerkaas marayaan nahay, dad xaaladooda meesha ay gaarsiisantaan nahay. gurigiibaa shar nagu asiiba iyo gurigiibaa qaylo ka jirtaa iyo gurigiibaa ciyaalkiis ku dardarsameen wax un baad maqlaysaa. say u ahaan weyse guri diimeed aan ahayn, guri qur'aan aan ahayn, guri cizi aan ahayn, guri rabbi lagu xuso aan ahayn, guriga ilaahay lagu xuso iyo kaan rabbi lagu xusin, guri camiran iyo guri kharaab oo kale kala yihiin. waa guriga aan diinta ilaahay lagu xusayn subxaana wa tacaala. saa darteed walaalayaal, qur'aanka in badan guryaheena aan ku tadbiiqino, aan ku salayno, aan gurigeena uga dhigna mid looga dhaqmo loogu camal falo, laga akriye laga sheego, mar kasta laga xuso ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa lagu akriye laga sheego, waa lagama maarmaan. xaaladaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala guriga ku ciseeya, sharafna ku yeelaa, ilaahayna subxaana wa tacaala agtiisa khayr iyo wanaag looga gaaraa. salaadaha qayb lagu tukadaa, dumarkaa in badan la rabaa inay ku tukadaan. habeenkii marka gobol ka mida lasoo kaca oo rabbi lagu barya subxaana wa tacaala. nin saxaabada ka mid ah ayaa yidhi rasuulkii ilaahayow, mar allaala markii ay roobabku yimaadaan waxaan tujiyaa qoomkayga, waan ka tallaabaa waadiga noo dhaxeeya. mar allaala markuu roobku yimaado, saylkana na dhex gala iyo waadiga toga uu soo rogmado, ma awoodi karo nin indho yareeyo indhihiisu ay daciifeen baan ahay inaan u gubto dhanka qoomkayga, inaan u gudbo. waxaan jeclaan lahaa maalin inaad ii timaado oo aad gurigayga meel iiga tukato, meeshaana aan ka samaysta makaan aan ku tukado. gurigiis wuxuu ka samaysanayaa maxal cibaado loogu talagalay, wuxuu ka samaynaa uu rabaa maxal nebiga ugu fura sala allahu calayh wasalam salaada, kadibna uu barakaysto saa isaa usii wato, kadibna uu asaga kusii tukado. xaaladaasuu raadinayaa. rasuulka allow ii imow oo gurigayga makaan iiga tuko, aan aniguna makaano tukad ka dhigade. saa darteed buu yidhi rasuulka saafcal, waan samayn doonaa insha allah. subaxii markay qoraxdu kor soo noqoto way igu soo jarmaaday buu dhahay. abuubakarna waa la socday. albaabkuu soo garaa istidaan buu qaatay, waanuu idmay. nebigu ma fadhiisan ilaa u dhahay xaggeed jecesha inaan kaaga tukada gurigaaga. waxaan u ishaaray meeshii aan rabay inuu iga tukado, meeshaa baan jeclahay. 2 ragcadood buuna tujiyey buu dhahay ayuu nebiguna tujiyey sal allahu alayh wasalam. 2 ragcadood ayuuna tujiyey. makaankaasaa wuxuu rabaa inuu ka sameeyo makaanuu ku tukado. meeshaasuu rabaa inuu gurigiisa cibaado hadda wixii ka dambeeya qaas uga dhigo. meeshaasuu rabaa hadda wixii ka dambeeya inuu ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala. nebi maxamed baa xarigga uga jaray, nebi maxamed baa u furay sala allahu calayh wasalam. intaa kabacdi bay xabiseen. rasuulka waxay ku daahiyeen waxoogaayaroo quraaco loo sameeyey. ahlu jaarkii wixii xaafadda deganaa markii ay soo maqleen nebi maxamed baa gurigaa jooga, itbaa ninka lagu magacaabo, way ku soo aruureen, way isugu yimaadeen, meeshii bay wada fadhiisteen. way nebigooday jecel yihiin sal allahu alayh wasalam. waxay rabaan inay ka qaataan axaadiista, waxay rabaan inay xikmadda kala baxaan, waxay rabaan hadalka uu sheegayo xikmadaysane allah ilaahay xaggiisa uga imaanaya inay dhegaystaan. saasay ugu soo xoomeen dhammaantood. cabbaar bay sheekaysteen. nin baa wuxuu yidhi aw ninkii maalig ahaa, nin baa maqnaa. markaasay dhan kaas waa munaafiqa naga daa, ilaahay rasuulkiisa ma jecleen, waa ninaan ilaahay rasuulkiisa jecleen. nin maqlay nebi maxamed baa inta jooga, haddana aan soo gelnoon imaanin soo maa, naga daa waa munaafaqe. rasuulku muxuu dhaha war saaha dhihina, miyaadan maqlin oo aadan ogeyn inuu yidhi laa ilaaha ila allah, asagoo ilaah dartii ula jeeda subxaana wa tacaala. qof kastoo laa ilaaha ila allah yidhaahda
alla dartii ula jeeda ikhlaas iyo dhab ay ka tahayna ilaahay naartuu ka xaaraantimay subxaana watacaala maya bay dhaheen annagu inta badan waxaan aragnaa inuu munaafiqiinta jecle la nafa fadhiyo marka matalan meesha waxaan ula jeednaa ninkaa gurigiisa wuxuu ka samaysanayaa qol ilaahay uu ku caabudo maanta qolkii jiifka waa leenahay qolkii fadhiga waa leenahay qolkii tv-ga lagu fiirsanaya waan leenahay qolkii quraacda waanu leenahay qolkii qadada waa jiraa qolkii stoorkii raashinka la dhigi lahaa waa jiraa guryaheenna ma ka mid yahay hal qol olin oo qolkii cibaadada ma ka mid yahay intaasoo guri baan leenahay intaasoo qol baan seexanaa hal qol oo aan ugu talagalnay waan dhahnay qolkaani waxaan ugu talagalnay in leylka lagu tukado amaan ugu talagalnay in ciyaalku ay ku tukadaan caaway ma nagu jiraa haddii ay nagu jiraanna waa wax yar waxaa yarna waa meel yaroo duqoo waxba aan markaa ahayn saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa xakiimkii munazalka wuxuu ku tilmaamay nebi muuse iyo nebi haaruun calayhim asalaam mar allaala markuu amrayo wuxuu amray ama uu faray in qoomkooday misr dejiyaan wajcaluu buyuutakum qibla guryihiina qibla ka sameey meel lagu tukado meel salaad lagu tukado meel salaada lagu oogo waxyaabo fara badan oo noocaasaa jira markii qolkii martida qolkii jiifka qolkii kida qolkii saaha qolkii waxaa qolkii alla ka cabsi male qolkii taqwada malaha qolkii cilmiga malaha qolkii ciyaalka qur-aanka lagu bari lahaa malaha qolkii salaada naguma jiro qolkii shaytaanka noo dhiman keliya aan ilaahay ka cabsana subxaana wa tacaala daacada iyo diintana aan usoo noqono ummad diinta ilaahay ku dadaashee kor u qaada ha la noqdo alla ka cabsiga laysku dardaarmo aad iyo aad ayuu u fiican yahay qiimo badanna wuu leeyahay inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan marka aayaadka alla lagu kor akriyana dadka iimaanka leh dadka ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey waxaa u kordha iimaan buu yidhi ilaahay zaadathum iimaanan wa calaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigoodna taladay u dhiibtaan subxaana wa tacaala ilaahay bay tala saartaan muujeedaa mu'miniinta maxaa lagu miaalaya oo lagu tilmaamaya muxuu ilaahay ku miaalay inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhuna zaadathum iimaana iimaan baa u kordha mar walbay aayad rumeeyaan iimaan baa u kordhaya iimaanku waa ziyaadaa waana nusqaamaa wuxuu ku ziyaadaa taaco ilaahay wuxuuna ku nusqaamaa macaasi mar allaala markaad taaco la timaado iimaankaaga waa kubca waa koraya markaad macaasidaadu badantahan iimaanku waa nusqaamaya saa darteed waxaa la rabaa iimaanka in la ziyaadiyo iimaanka in la korsado iimaanka in kor loo qaado tacaalow nu'min saacay ohan jireen saxaabada warkaalay hal saacaan ilaahay rumayne hal saacaan ilaahay rumayne maxay ula jeedaa war aan alla isxasuusino meesha aan fadhiisano si iimaan noogu kordho